wardegdeg daawadayaal waqtiga idin tahay wacan ayaan idin leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Turkida ayaa howlgaladii ugu cuslaa iyo duqeymo waxa ay ka sameeyeen tuulooyin iyo deegaano hoostaga degmada Xawaaley ee gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha ciidanka xoogga dalkana waxa uu gaaray furimaha hore ee dagaalka ee gobolka Shabeellaha Hoose si halkaas ugu dardargeliyo howlgalada ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab soo dhawaada daawadayaal fadlan hadoo muuqaalku ku soo gaaro meel dheer inoo gaarsi waa mahadsantiin howlgaladii ugu cuslaa oo ka dhacay tuulooyin iyo deegaano hoostaga degmada Xawaaley ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Turkida waxa ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga deegaanadaasi iyadoona lagu qaaday fariisimo kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab ay ku lahayn deegaanadaasi weerarka ugu cuslaa nala daawada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Turkida oo qoryuhu cusbaa ay dhawaan gaaray gobolka Shabeellaha Dhexe ku garaacaya iyo ciidanka oo toos u weeraraya goobihii ay ku dhuumaaleysan jireen argagixisada Al-Shabaab saad aragteenba howlgalkani waxa uu ka dhacay degmada Xawaaley deegaano aan ka fogeyn oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe muuqaalka aad arkaysaan waa ciidanka Turkida iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo si wada jira howlgalo ballaaran uga sameeyay gobolka Shabeellaha Dhexe tuulooyin hoostaga degmada Xawaaley ay ciidamadu howlgalada ka sameeyeen waxayna gabi ahaanba deegaanadaasi ay ka xoreeyeen kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab duqeymo culus oo qoryaha BM-ka ah ayaa laga geystay deegaanadaasi waxaana guud ahaanba la burburiyay difaacidii kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadii maanta howlgalada ay ka sameeyeen howlgaladani waxay ahaayeen howlgallo culus oo ay si wada jira u sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa Turkida iyo kuwa deegaanka iswada kaashanaya waxaana maanta tuulooyin hoostaga degmada Xawaaley ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa Turkida iyo ciidanka deegaanka howlgaladani waxay ahaayeen kuwa si weyn u culus waxaana jab xoogan la gaarsiiyay kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab wararkaan helina ayaa waxay sheegayaan in 32 dhagar qabo oo ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab lagu dilay howlgaladii maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo duqeymihii halkaas laga fuliyay sidoo kale waxaa nolosha lagu qabtay 14 dhagar qabo oo ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab kuwaas oo dhaawac ahaa howlgaladan waxay ahaayeen kuwa si weyn uga dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan tuulooyin hoostaga degmada Xawaaley ciidankuna waxa ay ka gaareen guulo aad u waaweyn iyagoona jab xoogan gaarsiiyay nabadiidka Al-Shabaab waa markii labaad oo sidoo kale ciidanka Turkidu ay galayaan dagaalada ay la galayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ay ku garabsiinayaan waxaana haltan aan idin la hadlayo gobolka Shabeellaha Dhexe ka soconaya gulufkii ugu xooganaa oo ka dhana kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab deegaano dhowr ah ayay wararku waxay sheegayaan in gabi ahaanba kooxda ay iskaga baxeen Al-Shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan ay kaabiga ku hayaan deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanadaas oo ay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si laba jibaaray howlgalada ka soconaya gobolada dalka waxaana howlgaladii maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe jab xoogan lagu gaarsiiyay kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab ciidanka Turkida iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si wada jir uga qayb qaatay haatan idin la hadlayna wili waxa soconaya howlgaladaas iyadoona ciidamada xoogga dalka ay ku soo qulqulayaan furimaha hore ee dagaalka iyadoona diyaaradaha dagaalka dawladda Turkiga ee dul hayhaabayaan goobihii dagaalada ay ka dhaceen wixii ku soo kordha howlgalada ka soconaya gobolka Shabeellaha Dhexe si degdeg ah idin kugu soo gudbin doonaa markana hadaynu aadno gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim ayaa waxa uu gaaray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo aan ku xusi karno deegaanka Sabiid iyo Caanole ujeedka taliyaha ayaa ah sidii u dardargelin lahaa howlgalada ka dhanka ah kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab waxaa la soconaya dabcan la socda howlgalkan ama safarka taliyaha ku wehelinaya saraakiil ka tirsan ciidamada Turkida oo iyaguna gaaray gobolka Shabeellaha Hoose waxaana halkaasi dabcan looga fikri doonaa qaabka deegaanadaasi loogu xoreyn lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Turkida wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si wada jir u gaaray gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qayb ka ah sidoo kale dadka meesha gaaray
waxaana haatan abaabulkii ugu dambeeyey oo ka soconaya deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka shabeellaha hoose. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa ay wadaan halgankii ugu adkaa oo deegaanadaasi loogu xoreynayay nabadiidka al-shabaab. shabeellaha hoose waxaa ka bilowday howlgalladii ugu cuslaa oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxayna ciidanku ay ku guuleysteen in gebi ahaanba ay haatan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa ay ka bilaabaan gobolka shabeellaha hoose, iyadoona sidoo kale howlgalladaas ay ka dhici doonaan deegaano dhaca dhulka xeebta, khaasatan degmooyinka Marko iyo Baraawe. waxayna ciidanku sidoo kale haatan ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan Jilib Markaa, Gandarshe ilaa Dhanaane iyo deegaanka Buulanaagay oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatan ama saraakiishoodaba ay kulan la leeyihiin dabcan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. taliyuhuna maanta waxa uu la kulmi doonaa saraakiil qaybeedyada ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose, waxauna amar degdeg ku bixin doonaa taliyuhu in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kuna dhaqaaqaan goobaha lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan hubkii ugu badnaa iyo saanado military ay gaareen gobolka shabeellaha hoose, waxaana haatan sidoo kale si isdaba joog uga degaya deegaanadaasi diyaaradaha dagaalka ee dowladda Soomaaliya dhawaan ay la soo wareegtay, waxaana soconaya dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. guud ahaan gobolka shabeellaha hoose waxaa ka soconaya abaabulada xooggan ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidankuna waxay howlgalladani dabcan ay qaadi doonaan saacadaha soo socda, iyadoona la filayo in deegaanada farqutiriska ah ee gobolka shabeellaha hoose laga xoreyn doono kooxaha argagixisada ee al-shabaab. guud ahaan sidoo kale gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya howlgallada culus oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. shabeellaha hoose ayaa dabcan haatan howlgalladu ay ka bilowdeen. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa safarkiisii ugu horeeyay waxa uu ku tagay gobolka shabeellaha hoose, waxaa wehelinaya wasiirka gaashaandhigga iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Turkida. safarka ujeedkan ayaa waxa uu yahay dabcan sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka kooxaha argagixisada ee al-shabaab, iyadoona haatan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa ay ka soconayaan gobolka shabeellaha hoose. markana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka sameeyeen iyo kuwa Jubbaland, khaasatan guutada Barjeex, deegaano hoostaga degmada Saakow ee gobolka Jubbada Hoose. wararka aynu ka helayno degmada Saakow ayaa waxay sheegayaan in howlgallo ballaaran ay ciidamada Jubbaland ay ka sameeyeen deegaanadaasi, waxayna ciidamadu ku guuleysteen in ay gudaha u galaan fariisimo ay ku dhuumaaleysan jireen kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. Saakow waxay ka mid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka Jubbaland uga wadaan howlgallada culus oo ka dhanka kooxaha argagixisada ee al-shabaab. haatan idinla hadlaya jubbooyinka khaasatan degmada Saakow ayay ciidamadu howlgallo ballaaran ay ka wadaan. sidoo kale deegaanka Baarsan Guuni iyo tuulooyin ku dhow ayay ciidamadu howlgallada ay ka wadaan. deegaanka Cabdalla Biroole ayaa ka mid ah goobaha ciidanku sida xooggan ay uga wadaan howlgallada lagu bartilmaameysanayo maleeshiyaadka nabadiidka ee al-shabaab. Jubbaland guud ahaanteedba ama gobolada khaasatan deegaanada Jubbaland ama jubbooyinka waxaa si xawli uga soconaya abaabuladii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. labadii maalin la soo dhaafay ciidanka Jubbaland ayaa sameeyay howlgallo culus oo ka dhana khawaarijta al-shabaab, waxayna ciidanku ku guuleysteen inay qaarijiyaan tiro badan oo ka tirsan nabadiidka al-shabaab. waxayna ciidanka Jubbaland sidoo kale ku guuleysteen hubkii ugu badnaa iyo saanada military inay ka soo furtaan kooxaha argagixisada ah. wararka sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiisha Jubbaland ay haatan howlgalladii ugu ballaarnaa ay ka wadaan tuulooyin aan ka fogeyn deegaanka Gudha, waxaana haatan soconaya abaabul xooggan oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. guud ahaan jubbooyinka si xawli ah ay howlgallada uga socdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa ay wadaan gulufkii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha khawaarijta ee al-shabaab. guutada Barjeex ayaa sidoo kale tuulooyin aan ka fogeyn degmada Bu'aale waxa ay ka wadaan howlgalladii ugu cuslaa, howlgalladaasi dabcan kaabaya ciidanka commandoska danab ee jubbooyinka. sidoo kale tuulooyin hoostaga degmada Beled Xaawa ay sidoo kale howlgalladu si xawli uga socdaan. ciidanka ayaana sidoo kale dhowr deegaan oo ka tirsan Beled Xaawa waxa ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya gulufyadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa 24 saac la soo dhaafay waxay ku guuleysteen in ay dhowr goobood oo ka tirsan gobolada dalka fariisimaan ay ku lahaayeen kooxaha argagixisada ee al-shabaab
ay ka sameeyaan howlgallo culus oo lagu bartilmaameysanayo kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. Howlgalladaasi ciidamadu waxay ku guuleysteen in deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka khaasatan goobo ay deganaayeen kooxaha argagixisada ee al-shabaab in ay ciidanku ay ka xoreeyaan. Sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa si wada jira howlgallo ballaaran uga wada deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolada dalka, waxaana haatan ciidamadu ay ku guuleysteen in gebi ahaanba ay ka takhalusaan kooxo ka tirsan nabadiidka al-shabaab oo ku dhuumaaleysanaya goobo furkutirsa oo ku yaalo gobolada dalka. Wixii dabcan kusoo kordha howlgallada culus ee ka soconaya deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolada dalka, janalkeena ayaad ka daawan doontaan. Fadlan hadduu muuqaalku kusoo gaaro meel dheer inoo gaarsii, janalkana subscribe inoo dheh. waad mahadsantihiin.